السلام عليكم. لكن sida loola macaamilo dadka jecel muranka iyo inay tusaan qaladkaada dadka kale. Hadda ka hor markaan qaxootiga joogniyo yar meesha waxaa u bixinay yaqaana yani cirka waa guud hadalada ku leeyahay cirka waa buluug hadalada cirka waa madow cirka madow ma ahane waa cagaar yani markii dambe waa laga noogay waxaa u bixinay yaqaana yani wax walba uu yaqaana waxaa leedahay meel hebel aan joogin darad dagaalaa ka dhacay ama meeshaas waxaasaa ka dhacay waa joogo kule inta joogto anaka meesha joogno maa lagu arkay maya markaa imaadeen ka horaa soo baxay yani waa yani dadka noocaan oo kale marka xaqiiqada dhabta laga hadlo waxaa weeye they had a trauma yani trauma waxaa la dhahaa yani dhib bay soo maray hadda ka horo dhibkii maynan xaladin ama yani maynan ka hadlin oo wixii way qarsadeen marka waxay dareemayaan insecurity waxay dareemayaan in yani aynan ahayn dad dhan ama dad yani sida yihiin ku faraxsan ama sida yihiin ku qanacsan si marka dadka kale aynan u arkin waxa qofka dhabta ay yihiin waxay xiran yihiin maaska waxaa si ay u qariyaan qofka yihiin waa in ay dadka kale tusaan ama dad kale ay ka gadaan wax aynan ahayn qofka dhabta ay yihiin in dad kale arkaan ama ay tusaan ma rabaan dadka kale waxay rabaan inay tusaan image aanan ahayn wax aanan ayaga ahayn bay rabaan inay adiga kaa gadaan ama dadka kale ay ka gadaan marka si marka ayaga aadan ugu mashquulin adiga ku mashquulinaan wax walbo dhahdid ama wax walbo oo samaysid murun bay ka kala u fiirso ilaahay markiis qof wax walbo samayso ka murmay ama wax walbo samayso waxaan saan baahniyo inta ka sameyn karta saan maahan sana yeeli karta yani hadda asaga waxaan uu kuleeyahay waxaana ka bedeli kartaa allihiisa alla ma yaqaano weligiis allihiis muslimaan maanta ka hor wax muu arkay aqoon uma laha uu ku imaana wuxuu leeyahay waxaan saan maaha intaa ka bedeli saana yeesman leh ama saana yeeli leh ama waxaa weydiinaysaa meesha uu inuu kuu jawaabo sugaysay yani muranku indhuhu kaasoo galsida wax inaad dacaysay oo kale ama inaad caysay ama inaad wax ku samayso oo kale halada maxaa kaa qaldanay wax leen ku weydiisay wax kayn yani meeshii aad ka sugi lahayd ama aad ka sugaysa inay wax kuu sheegaan yani muranay kula soo galaan ama sida wax waalan oo kale kaasoo qaadaan ama sida inay wax si kayin oo kale kula hadlaan ama jawaab waxay ku siinaan oo yani sarcastic oo qofta ku dhex jira camal oo aan fahamta aan dhabahay ama waxaa weeye tusaalahan waxaad sameynaysay qaladaa kaa dhacay inay ku yeeraan kuma dhahaniyo waxaan saan asbaasaxan tahay laakiin intaa ka qalday iska sax ama saan samey kuma dhahayaan waxaabay kuula hadlayaan ama ay kaasoo qaadayaan sidii inaad tahay dulli oo kale ama sida inaad tahay dhaadhaan oo kale ama sida inaad tahay qof nacas oo kale ama waxba sixi karin oo kale soo marka dadka hortooda ayay kugu bahdilaan ama dadka hortooda ayay yani si xun kugula hadlaan marka waxay wax u sameynayaan waxaa weeye maaha inaad adiga aad tahay qof xun ama inaad wax kaa qaldan yihiin ayaga they are projecting their insecurities onto you yani waxay kugu soo gudinahayaan kalsooni darada ay ayaga dareemahayaan waxa ay naftooda ka aaminsan yihiin ay adiga kugu soo gudinahayaan tusaalahaan haddii hadda aniga aan ka aaminsan inaan ahay qof dhaadhaan ah ama qof waxba aan qaban karin ama qof dulli ah oo adiga aad aaminsantahay inaad tahay qof kalsooni naftiisa ku kalsoon wax sameyn kara wax qabsan kara waan kaa masirsanay sababtoo waxaan kaaga masirsanahay ayaa waxay tahay kalsoonida aad leedahay iyo qabka kugu jira ana ma leh si marka aan aniga u dareemaa inaan yani ahay qof kalsooni leh waa in aan adiga kuysa ama aan hoos kuu dhigaa si aan aniga kor isu qaado marka dadka noocaan oo kale ah waxay jecel yihiin in dadka kale ay hoos u jiraan dadka kale inay yani ay wax kasoo qaadaan wax yar sida ay naftooda ay u dareemaan inay yihiin qofka keliya oo meeshaan ugu sareeyo qof keliya oo meeshaan aqoon u leh ama qof keliya oo ah meeshaan ka talin karo oo yani meeshaan yani ka ah ninka keliya oo waxaa aqoon leh wax samayn karo marka ma rabaan qof kale oo ka aqoon badan ama ka waaya aragsan ama hadda gabarta tusaalahaan ayaga kaa qurax badan ma rabaan competition ma rabaan tartan ma rabaan si marka taas aynan u dhicin waa in ay qof walba ay naftooda ugu cabsi qabaan ama beri maalmaha ka mid ah ayaga bedelaa ama ayaga laga maarmaa oo qofkan kale booskooda qaataa waxaa weeye si ayna taas u dhicin
waa inay kugu beeraan kalsooni darro, cabsi, walwal iyo buufis inaad naftaada ka aamin baxdo. mafahant dadka noocan oo kale ah waa dad yani waxaa la wax lahaa waxaa jira wax lahaa argumentative personalities oo wax la dhahaa jira dad iska jecel muranka. dadka noocaas oo kale ah waxaa macquul ah inay yihiin ama 99% la hubaa يعني inay yihiin dad narcissist ama narcissist waxaa weeye yani dad aaminsanba inuu valuegooda qiimahooda uu yahay inta xaqiiqad jirta wuxuu yahay qiimahooda ma dhammaysto waa intuu joogo qiimahooda. laakiinse waxaa adiga ay raba inay ka dhaadhiciyaan ama ay ka gadaan inuu qiimahooda inta joogo adiga aad qiimahaada inta joogo. marka xaqiiqada dhabta laga hadlo marka wuxuu yahay qiimahaada ayaa ka saray. si marka adiga aadan u ogaanin qiimaha aad ku fadhiso waxay isku day inay ka dhaadhiciyaan inaad tahay dulli dhaadhaan taasoo ah inay qaladkaada dadku untusaan toos kugu dabahayaan. qaladka aad samaysid ay ku tusaan. wanaagga ahaas ma sheegayan, wanaagga aad qabato ma sheegayan, waxaad haysa ma sheegayan, waxaad u qabato ma sheegayan, asxaanka aad u gasha ma sheegayan. waxa keliya ay ka sheekeynayaan waxa xun oo aad samaysay ama qaladka kaa dhacay ama hadda ka hor magarasa qalad kaa dhacay ama hadda ka hor wax xun aad samaysay ama gaf aad gashay bis unbay kusoo xasuusina ama dadka kale ay usoo xasuusina ay sheegaan dadka kale u sheegaan ay kala u sheegaan. marka adigii haddii markii aadan ogeyn wax socdo aadan fahamsaneen adiga naftaada shakiya marka ku galaya naftaada ka aamin baxaysa waxaad isu malaynaysaa waxaan inuu wax ka jira. marka waxaad leedahay niyo macnaha khaldan si waxay magdiba iskugu noqonaysaa. marka tallaabo walba ood qaadid waxaad isku dayaysaa in aad si fiican uga fiirsato si ayaka aad ugu xanaajin si ayaka ay ku nacay si ayaka aad ugu araysiin. marka si aad ayaka aad u raaligeliso ood ayaka ay magaranaysaa aynan xumaatadaada ayna toos ku qabanin iyo qaladkaada ay toos ku qabanin qaladkaada dadka tusin dadka ay qaladkaada aynan magaranaysaa adduunyada ayna tusin. waxaad isku dayaysaa inaad ayaka qanciso. marka waxaad samaynaysaa wax walba oo karaankaada ah ama wax walba ay jecel yihiin ayaka aad u samaynaysaa si aad ayaka ay u caragelin ama ayaka aadan uga xanaajinin. xaqiiqad jirtaa waxay tahay ayaga kama xanaajinahaysid ayaka baa naftooda kalsooni ku qabo naftooda ka aamin baxsan. waxaa ma fahanta si marka ay yani aadan adiga meesha aadan ugula wareegin waa in ay يعني kugu shubaan ama ay ka dhaadhiciyaan in wax aad samaynaysa ay wax ka qaldan yihiin ama inay wax si kaa yihiin. marka hadda you have to please them waa ina ayaka aad raaligelisaa waa in ayaka aad magaraysaa aad magaraysaa wax walba oo samaynaysid waa ina ayaka aad fasax ka qaadataa waa in ayaka aad u daba fadhiisataa naftaada ka anbixisaa. waxa keliya rabaana wuxuu tahay taas ina ayaka u daba fadhiisato wax walba talaabo walba qaadaysid wax walba oo samaynaysid ina ayaka kala tashatid. waxaa project wax aynan ayaga raalli ka ahayn ma sameyni karta. wax aynan ayaga aynan hogaaminayn ama ayaga aynan dabada ka riixayn ma sameyni karta. hadda waxaa tahay ayagaa gacanta ugu jirta sidii eeyo kale. marka inta samey waxaan qaba okay waxaan kala samey yani waxaa tahay wax markay rabaan ay isticmaalaan markay rabaan ay iska tuuraan waxay rabaan taasa marka inay ka dhaadhiciyaan in la-aantood aadan waxba qabsan karin. marka waxaa weeye dadkaas way kaa masiirsan yihiin they envy adiga kaa masiirsan yihiin adiga iyo tartan kugula jiraan adiga ayaa ku ximinahay. waxaa katmaa si marka adiga aadan u ogaanin kalsoonida yani qiimaha dhabta aad ku fadhiso si aadan u ogaanin qofkaa tahay waxaa weeye jaanisba kuma siinayaan si aad naftaada u ogaato oo naftaada aad yani anaadniyo waxaan ma sameynaya naftaada anaa raalli ka ah ilaahay uurtay shaksi baan ahay waxa aan ku qanacsan nafteeda intaan sameyna. si taas ayna u dhicin waa in markaas ay ku burburiyaan kalsoonidaada ay burburiyaan identityga yani identity waxa la dhahaa jira shaksiyadaada shaksi baa tahay ani fikradan aaminsan aadan ma aaminsan isku fikrad ma noqon karo. marka waxay burburinayaan shaksiyadaada burburinaan kalsoonidaada burburinaan yani ka aamin baxa naftaada ka aamin baxaysa. soo waxaa garata ma marka waxa keliya rabaana waxay tahay in aadan lahaanin identity in aadan ahaanin shaksi madax banaan shaksi u madax banaan yani his thoughts fikirkiisa
qof yani naftiisa u fikri kara, qof danihiis ka fikri kara, qof magaranaysa aayihiis ka fikri kara, qof inaadan noqonin qof u madax banaan ay ka tashigaa. waxaan ku dhaha ma fahanta si marka ayaga aad wax walba sameynaysid aad u daba fadhiisato oo aad u daba taagnaad ayaga. dadka noocan oo kale ah waa halis, waa inaad ka dheeraataa. ha ahaadaan tol, ha ahaadaan walaal, ha ahaadaan saaxiib, ha ahaadaan dad ma aha aad la socon karta. dhibka jiraa wuxuu yahay marka ayaga they don't have identity. ayaga yani ma haystaan yani shaqs yani identity waxaa waa inaad og tahay qofka aad tahay, shaksiyadaada waa inaad taqaan, waa inaad naftaada taqaan. naftooda ma yaqaanaan. identity shaksiyan yani ma ahan qof yani oo shaksiyad le ma aha. qof ma ahan ayaga u madax banaan fikradooda oo dantooda ka fikri kara maaha, danahooda kama yaqaanan, kama fikri kara. marka maadaama aynan ayaga identity lahayn, ma rabaa in adi marka aad noqoto qof identity leh, qof yani u madax banaan yani xoriyadiisa, qof u madax banaan yani danihiisa u fikri kara. waxay doonayaan waxay kaa rabaa inaad noqotid sida ayagoo kale. waxaan ku dhaha ma fahanta dadka noocan oo kalea wallahi waa halis, lama soconi karta. waa inaad goysa. haddii aadan goyni karin waa inaad iska ilaalisaan iyo waxaad sameynaysid aadan u sheegin, waxa aad rabta inaad samaysid aadan u sheegin, mustaqbalkaada iyo arrimahaasna aadan kala hadlin, aadan u sheegin. sababtoo ah ayaga meel uma socdaan, yani way ku qanacsan yihin siday yihiin. dhib ku jiraa wuxuu yahay marka maba aaminsana inuu wax ka qaldan yahay. marka taas waxba uma sheegi karo qofka. yani hadduu bako waa inuu horta yani og yahay, uu iska warmaaniyo waa xanuunsan oo inaa isbitaal aada. laakiin qof yani xaqirayba xanuunka hayo qolo balaayo ma qabo oo ogta qofku inuu jiran yahay, dee wax walboo samaysta, wax walboo siisaa ma qasbi karto qofka. waa inuu qofka asaga horta og yahay dhibkiisa. dadka noocan oo kaleha marka dad iska warma ma ahaba. they don't have a self awareness ma lah. yani self awareness waa in aad naftaada ka warantaa shaksiyan, waa inaad naftaada ka warantaa, waa inaad taqaanaa si yani loo process gareeyo iyo thoughts yani fikradahaada si loo process gareeyo waa inaad taqaanaa. haddii aad dareemaysid xanaaq waa inaad taqaanaa sida xanaaqaas yani si healthy ah loo yani you have to show yani inaad taqaanaa inaan si fiican isu fahnaa raba. okay waa in aad taqaanaa si xanaaqaas loo tuso dadka kale si healthy, yani iyadoo yani adigoon dad dilan, adigoon dad xumeyn, adigoon dad wax xun ku dhufanayn, laakin you have to show people that yani waxa aad dareemaysid inaad dadka kale aad tustaa oo daadmi waxaan kaa tabana waxaan usmays. yani you have to know si waa inaad taqaanaa si dadka kale loo tuso waxa aad yani aadan ku qanacsanin ama waxa aad dareemaysid. marka intaasba ayaga malaha ma fahan. de marka ayaga waxay u baahan yihiin inay naftooda ka shaqeeyaan. they have to work on themselves. waa in naftooda ayaga ay ka shaqeeyaan. waxaa jira wax la dhahaa shadow work. shadow work waxaa weeye yani inaad fadhiisataa naftaada, aad adiga dib iskugu noqotaa. waxyaala haddii ay jiraan aad tabanayso, ama waxyaala aad sanado badan aad iska ilaalinayso, ama waxyaala sanado badan aad dareemay inaad samayso oo aad ka dhudhuminaysid, inaad adiga naftaada yani to confront yourself. waa in naftaada aad balburayd hortagtaa isfiirisaa. iyo maxaa iga qaldan, waay aan waxaan intaas sano ugu memeerasana inaan sameeyo, maxaa ii hortaagan, maxaa yani ii diida inaan waxaan aan sameeyo. yani haddii aan waxaan sameeyo maxaa dhici kara, maxaa yani waa in naftaada aad ka shaqaysa adiga. waxaan ku dhaha mafan marka ayaga maynan sameynin the shadow work, maynan sameyn naftooda, maynan confrontation, maynan kusameyn naftooda, maynan ka hortagin mafan. marka haddii marka ay ku arkaan adiga inaad shadow aad samaysay, the shadow work adiga aad samaysay, naftaada aad ka shaqaysay, naftaada aad ka hortagtay, naftaada aad face garaysay, naftaada aad ka cararin ee waxyaalaha xunxun oo ama waxyaalaha aad dhibsanaysay aad ka hortagtay oo aad samaysay, now waxaad dareemaysaa kalsooni genuine ah. waxaad dareemaysaa kalsooni dhab ah. iska yeelka ama kalsoonida waa kalsooni dhab ah. sababtoo ah you put the work in. sababtoo ah waad samaysay shaqadii aad u baahneed inaad samayso si aad u gaarto hadafkan, ama si aad waxaad meesha aad rabto si aad u gaarto waad samaysay shaqadeeda. maada iska yani waxaa jira kalsooni iska yeel ah iyo kalsooni daacad dhab ah. ayaga marka kalsooni dhab ah ma haystaan, kalsooni waxay haystaan iska yeel ah oo been ah. so marka maadaama adiga kalsoonida ay tahay tu dhab ah
and you put the work in aad shaqada gelisay, you paid the price qiimihii waad bixisay si aad u gaarto hadafkaada ama waxaan, and you did the shadow work naftaadana waad ka hortagtay, naftaadana waxyaalihii aad ka cararaysay waad samaysay, maad يعني you overcome your obstacles يعني waxyaalihii dhan oo dhibsanaysay ama dhibka hortaanay oo dhan waad ka guulaysatay, ayaga mayna samayn taas mayna ka guulaysan, maad marka maadaama ay kalsoonida tahay kalsooni dhab ah, ayaga kalsoonidooda ay tahayna tu oo iska yeel ah oo lagaa sheega ah, adiga hadda ku ataagaraan marka adiga kusoo weeraraan, waxay kuusoo weeraraan wax kale ma aha inaad qof xun tahay, waxaad u tahay muraayad ayaga hortaagan oo tusayso wax qofka dhabta ay yihiin, waxayna tusaysaa inay u baahan yihiin inay naftooda ka shaqeeyaan si ay يعني أي مقرنسة أي نبكة يعني وحان بنت إيش الشيء يعني أي كجود أي ونقدان قف يعني أو قف نبه أي ونقدان مركة عدو يكون قنا عدو يعني يكون أركا يعني هذه أنا وحنا ما نقصهم هن سو حاجة تبع مركب يوصل ويرنا هون وأسلوب أنتي وأفتكر بنتي نتقص كسر يسوع محمد سنة عليك دقيقة من بنتي وحاس أي ما عليه مركب وحاس ما دري ما يصير أيك أي تاسك قفل sababta xasuuso adiga you paid the price, you did the work, you did the shadow work, you overcome your obstacles, waxaa muna mafan qiimihii waad bixisay, naftaada waa ka shaqaysay, waxaaway dhibka ku haystay waad ka guulaysatay, so waxaa garata ma ayaka intaba mayna sameyn si marka naftooda ay u qanciyaan, waxaaway waa inay adi isku kaa taagaan, ay adi marka isku kaa taagaanna ay kaa guulaystaan si marka ay hadda u dhahan okay waxaabay hebel aan ka guulaystay yani si naftooda ay qiil ugu helaan, waxaa kula dhaqan dadka noocan oo kale ah laga kama guulaysan kartid mar ugama guulaysan kartid, waxaa weeye waa adigaba kuwaalan haddii aad xataa la ficiltanto adiga aad yani kuwaalan oo waxaad moodaysaa inay wax kaa qalday ama inay wax iskaa yihiin, miman waa dangerous dadka noocan kale wallahi waa sun, waa inaad iska goysaa ama aad iska ilaalisaa, lama socon kartid saaxiibi lama ahaani kartid, miman marka waxay oo inaad ka dheeraata inta ka dheeraan karta haddii kale adiga ayaa halis ku sugan. fadlan haddii aad u bogtay videoyaasha aan sameynay waxaa weeye gabla subscribe noo saar, gabla tagsi like dhaha, fadlan share dhaha, comment ka bixi si marka aad like dhahdaan share dhahdaan comment aad ka bixisaan subscribe aad saartaan yani dadka kale ayaan maanta magaranaysaa ayaan يعني we can help a lot of people dadka kale ay videoshayna sii gaarayaan, soo waxaan karta ma marka waxaan doonayn waxaa in videoshayna uu sii bato oo dad badan aan yani aan insha Allah soo aan gaarno soo taabano aan saacino, waxayna balana videoda kale fadlan gabdhaha hore aan bilana okay إن شاء الله هيه تحضر نفتينا كده تحضر be safe cold قبول مالما هيه سلام عليكم سالوت باي باي.